jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Sacuudi Carabiya ayaa kaalinta labaad waxa ay ka galeen tartanka ciyaaraha jaaliyadaha dalkaasi ku nool iyadoo dawladda wadankaasina ay markaa ku bogaadisay jaaliyada Soomaaliyeed dadaalka ay sameeyeen. warbaahinta qaranka waxa uga soo diray warbixintan dalka Sacuudi Carabiya wariyaha warbaahinta halka uga soo warama Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus. وزير كحجينكا أو قابتا يا رمادين الدولة فدرالكا إيه صوماليا مدن عثمان آذن دوغو قنصل كجود صوماليا وفريا مقالة جدة مدن إلياس شيخ عمر كحجينكا قنصل كجود مدن أحمد محمود ديرية معروف مسؤولين كترسن قنصلية دا قدوميها قدقا إسبورتيكا إيه مقالة جدة مدن أويس عبد الله كابوي قدقا إسبورتيكا إيه جاليد صوماليا يكونوا مقالة جدة أيا كسو غيب قلي داوشدا عيارتي وقدم بيسي إيه فينالكا ee dhaxmartay kooxaha ciyaartooyda kubadda cagta ee jaaliyadaha Soomaaliya iyo Eritrea oo qayb ka ahayd tartanka koobka lagu maamuusayay marxuum Sacuud Al-Faysal oo ay ku baratamayeen kooxo ku ciyaarayay magaca jaaliyadaha 20 dal ee ku nool magaalada Jeddah. haddaba gabagabada ciyaartaasi finaalka ee oo dhaxmartay kooxaha jaaliyadaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ahayd ciyaar ku dhisan xirfad iyo farsamo taasina ay si weyn u raali gelisay dadweynaha ka soo qayb daawashadeeda iyadoo ugu dambeyntii ay guusha halkaasi ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Eritrea iyadoo Soomaaliya ay gashay kaalinta labaad ee tartankaasi. haddaba markii la soo gunaanaday ciyaartaasi ayaa qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jeddah mudane Ilyaas Sheekh Cumar oo koob iyo bilado loogu talagalay kaalinta labaad guddoonsiiyay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Soomaaliya iyadoo guddoonsiinta abaalmarintaasi kadib uu qunsulka guud mudane Ilyaas Sheekh Cumar uu ka waramay sida uu ugu faraxsan yahay doorka kooxda Soomaaliya ee tartankaasi iyo sida uu ahmiyad u siinayo horumarinta ciyaaraha iyo kooxaha ciyaartooyda Soomaaliya ee magaalada Jeddah. haddaba qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jeddah mudane Ilyaas Sheekh Cumar ayaa markii uu la wareegay maamulka xafiiska qunsuliyad guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Jeddah uu jadwalkiisa shaqo qayb weyn ka siiyay abaabulka dhismaha iyo xiriirinta kooxaha Soomaaliya ku ciyaaraya magaca Soomaaliya oo mudane Ilyaas u arko inay yihiin dhalinyaro matalaysa magaca calanka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. مرحلة في عم بعد سوق جاري وحرجين دون إن شاء الله يتبدل وين إنه كدر دون لنا سبورتيكا حد وين إن إنتها يعاوة إلى كل هذا اللي لنا كسر قيم كله إن شاء الله أنا يرد سبورتيكا ودان ويسالك دونا وقت في عنا وضقادن دون haddaba intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka oo qaabtay arrimaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cusmaan Aadan Dhuubow oo ka waramay qiimaha ay leedahay marka ay koox ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya u soo gudubto ama soo gaarto gabagabada tartanka koobka iyo dadaalkii mugala ee ciyaartooydaasi u soo galeen inay soo gaaraan kaalinta labaad ee tartankii u dhaxeeyay kooxaha ciyaartooyda oo matalaysay ilaa 20 dal ee ku nool magaalada Jeddah. runtii waxay tahay farxad si gaar ahaaneed ah waa dareemaya guusha waa gaarteen mar haddii finaal soo gaaro kubaddana sideeda waa cad iyo madow meel u dhacdaba in aad kaalin adag soo qaadato 20 jaalidood inaad ka soo dhexdeen marxaladda soo gaarteen aan garab badan ahayn ay u tahay runtii isboortiga wax ka garanayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga hore dowladda federaalka Soomaaliya runtii kaalinka hadda ciyaaraha qaabka hadda aatiin oo min footballkana waxaan rajaynayaa anigoo talana dhinaca kaga leh oo ragga sida taqaana Cabdixaaq iyo tiimkooda min footballka in door adag xiriir adagna aadin sameyn doono aan rajaynayna insha Allah dhalinyaradan da'da yar maanta aan arkayna sida ciyaartooda wanaag ahayd iyo magaca sharafta meesha ay tusoo iyadoo dawlado badan oo naga quwad badan soo dhaafteen magaca leh oo dhaqaalahooda iyo waxooda marka waxaa garan kartaan tabartiina iyo meesha soo gaarsiin magaca Soomaaliya aad baan kulli iska hambalyeynaa waan rajaynayaa inta aanan bixin in aniga iyo qofka kulli baa iska kaashano in aan xaflad gaar ah idin sameeyno taayada ay noqon doonto mid guusha ka aan rajaynayaa mas'uuliyad ahaan kale علي جامع علمي على كوس وارباحين تقرق الصوماليا SNTV سعودي أرابيا